السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركل لو dhaqano ku soo dhawaad casharada imtixaanaha mid kamid ah casharada maanta wuxuu ku saabsan yahay hadii la yiraahdo sida loo soo xalo dabcan tuulasha kala duwan ee hacking lagu sameeyo wuxuu maanta dabcan isla eegayna hadii la yiraahdo toolka loo yaqaan hadii la yiraahdo toolkan oo loo yaqaano Armitage maaragtay waxaan loo yaqaanaa isla arki doonaa hadii la yiraahdo waxaan soo furaynaa terminalka waxaan ku qoraynaa hadii la yiraahdo Armitage toolkan hadda aan isla eegayna hadii la yiraahdo dabcan ma shaqayn doono hadda kan waxaan doonayaa inaan tuso sidoo sababta u shaqeynayaan iyo waxyaabo u baahan yahay hadii la yiraahdo marka kitaabka leedahay wasiirka hadii la yiraahdo marka ma shaqeynayo hadda waa tusaale la siinayo waxaa leedahay connect ayaa leedahay hadda niyeysan ku leedahay yes waxaan ku jiraa marka waa arkaynaa hadii la yiraahdo waxyaabaha maaragtay dabcan halkan ku arki doonaa marka dib aan hagaajin doonaa laakiin kor aslaana waa ma shaqeynayo bash error ay soo baxay oo bash error-kan waa in aan kasoo habeyn hadii la yiraahdo oo kasoo shaqaysiinaa oo aan Armitage-kan aan maaragtay ka shaqaysiinaa oo kusoo installation kusoo sameynaa hadii la yiraahdo maadaama uusan hadda marka ugu horreeyay oo la isticmaalaa qaybtan hadda ku isticmaalayno ay tahay waa inaan maaragtay soo dejinaa soo habeynaa kadibna aan maaragtay aan ka shaqaysiinaa hadii la yiraahdo haddii ay ku qabsato markii ugu horreysay oo aad isticmaalayso ay noqoto inaad la kulanto arrintan waxaan isla eegi doonaa sida aad ku hagaajin doonto hadii la yiraahdo asagoo shaqeynayana casharada hadii la yiraahdo si wadan hadda waqti badan oo qaadanayaa oo raadinayaa laakiin aakhirkii waa dareemaysaa ma shaqeyn doono marka waqti badan hadda iskaga sii qaadi mayno hadii la yiraahdo maadaama uusan shaqeynayn waxaan doonayaa inaan isla aragno eegtaan haddii lacala ay ku qabsato arrintan inaad hagaajiso toolkana dabcan waa muhiim ayuu aad u sii yahay waan arki doonaa gudaha usii geli doonaa hadii la yiraahdo marka ka shaqaysiino waxaa loo isticmaalaa waxaa weeyaan in hacking-ka markaad sameynaysid oo aad rabtid inaad maaragtay hacking ku samaysid computer ama network aad ku dhacdid computerka isticmaalaya aad hacking qabtaan isticmaalaysaa waxaad arkaysaa computerada kala duwan iyo nadwada isticmaalayaan ayaa lagu arkayaa hadii la yiraahdo marka toolkii hore soo isticmaalay oo nadmanka ahay isagoo waxaa lagu helaa albaadresada ayaa ku maaragtay dabcan hal albaadres ayaad qarnina u isticmaalay isaga oo qaybtaas albaadresada hoos imaada oo /24 ka ah aan ku raadinaa waa maaragtay waa intaas markaad /24 ku samaysid qaybta hoos imaata waa albaadresadaas aad mid kamid ah ayaad ku howlgelinaysaa markaas aad sii howlgelinaysaa wuxuu kaloo muhiim u yahay inaad ku ogaatid network-gaaga boortiyada furan alaabada soo geli karo waxaa kaloo sii muhiim ah macluumaad dheeraad ah kusoo sameeyay qaybada iskaashid targetka midkaad saaraysid oo maaragtay targetinaysid ayaad gelinaysaa markaas waxaad ugu soo bandhigayaa web system-ku yahay noocu yahay version-kiisa server nooca uu ka yahay boortiyada furan kuwa xiran marka magaca isticmaalaha computerna qaybahaas dhan sii arkaysaa marka aad u muhiim u ah marka kana waa isna waa aad muhiim u yahay marka waan arki doonaa gudaha maaragtay hadii la yiraahdo gudaha hadii la yiraahdo casharada dib u xiga maaragtay waan doonaa hadduu arkaysaan shaqadiisa waa u dhamaystay laakiin wax soo baxaya oo soo boodaya oo maaragtay ma jirto oo halkiisaas maaragtay sidaa maaragtay ku ahaanaya
ma shaqeynayo marka insha allah waa saaki doona haddii la yidhaahdo waa markaynu u dhaakoonada tan iyo cashiradana xiga kulmi doono haddii la yidhaahdo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu